السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaani waa idaacadda ciyaalka xaafadda dhammaan waa salaamantihiin mudanayaal daawadayaal. maanta idaacadda ciyaalka xaafadda waxaa marti inoogu ah nin lagu magacaabo mudane Saciid Maxamed Xasan oo ku magac dheer mudane Jango. waxaanu doonaynaa in aan ka wareysano dagaalada mar labaad ka soo cusboonaaday degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud, gaar ahaan tuulada lagu magacaabo Ceel Baraaf. mudane Jango, war ma inaga sii kartaa dagaaladaasi ka soo cusboonaaday degmada Guriceel gaar ahaan deegaanka Ceel Baraaf? maxaa soo celceliyey dagaalada mar waliba? mudane, war inaga sii taa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dagaaladaanu soo naqnaqanayo ma garan karo, laakiin haddaan qiyaaso dagaalku waxa weeye lamadan qofood al-sunna wal-jamaaca iyo al-shabaab waxay ku dagaalaan cid ma garan karto. laakiin qof kastaba waxay leedahay aniga waddankan insaanay tahay burcadka tuurayno waxaas habeenayno. laakiin haddaan qiyaaso lamadooraba qalad bay ku dagaalayaan, waa wax diin ah kuma dagaalayaan ilaa maanta hadda ma hayaan. dagaalku hadduu diin ahayn qof wax lama yaqaan meel lagu qiyaaso. laakiin bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu mahadcelinayaa in Ilaahay dhibaatada ka qaado, in dagaalkan Ilaahay ka dhaafo. waxaad carabka ku dhifatay laba nin waxa isdagaalaya, ma laba ninba mase waa laba koox? haddayse yihiin laba nin amba laba koox, ma inoo kala sheegi kartaa magacyahooda, ururadooda? baryahan dambe waxaa soo ifbaxayay ururo oo magaca diini wato haddana dagaalada sii hurinaya. marka ma inoo sheegi kartaa ururadaas waxay kala yihiin? ururada magacahooda haddii aan guda galo, qof kastaba waxay la baxday qof waxay la baxaysaa al-shabaab, qof waxay la baxaysaa al-sunna. waxay u dagaalaan ilaa magacahooda, qof kasta magac bay iska sheeganaysaa, laakiin ma qiyaasi karo magacahooda. oo marka hal kastaba dhalinyaro inta soo cilmaan shabaabka soo gurubsado oo leeyahay dalkii diintan difaacaya. halna wuxuu leeyahay al-sunna nahay, nimankan waxay sheegayaan wax kama jiro. maxaan magacooda qiyaasnaa, maxaan ku qiyaasi karnaa? adin bal su'aal naga sii aday. kulley waxaan u arkaa su-aashii aan ku weydiiyey inaad ka meereysanayso ka gudubtaa. hadda waxaanu doonaynaa in aad waraysi gaaban aan kula yeesho oo ku saabsan maalmahan dambe waxaa soo ifbaxayay in dadkii hogaamiyaasha ahaa qaarkood xabsi lagu taxaabo. tusaale ahaan maxamed cumar xabeeb maxamed dheere oo maalintii dorhad ahayd etoobiyaanka ay ka kaxaysteen gurigiisa. ma inoo sheegi kartaa sababta ay maxamed dheere u kaxaysteen, maadaama uu xulufo la ahaan jiray etoobiyaanka, iyo halka ay geeyeen? haddaan taas u guda galo, maxamed cumar xabeeb maxamed dheere waa nin siyaasi ah, waa nin dowladda ka tirsanay, oo nin xil dowladda u hayi jiray. hadda haddaan nin xilka laga dhigay oo hadda hadduu rayid noqday oo dabadeed baa la xiray. laakiin hadda wax lagu xiray lama garan karo, ilaa hadda lama qiyaasi karo, ilaa waaga jawaab kama soo bixin. saasay tahay su-aashu, ilaa waaga hadda ma oran karno walaalayaal. waa mahadsan tahay. haddii aan usoo laabto shaqsi ahaan adiga, waxaad ii sheegtay in aad tahay nin aqoon-yahan ah oo ka yimid dalka Maraykanka. aqoontaada heerka ay gaarsiisan tahay wax ma inoogu sheegi kartaa adigoo mahadsan? haddaan u guda galo, aqoon-yahan hadda waddankaanu waa buuxiyaa. haddaan anigana kolleyba ka mid noqdo dadka aqoon-yahan ka joogo. laakiin waxaa weeye aqoon-yahan waaba loo soo dhigta walaal, oo markuna naftiisa la cabsanayo. aqoon baan leeyahay haddaa balika tiraada oo la gowraca dadkii doctorada dilaayo, dadkii waxna ma wada dilaayo. laakiin ma aqoon-yahan baad isa tiraa magaalada ma ku faka kartid saaxiib, oo naftooda la cabsanaysaa. saas baan u malaynayaa aniga. weli waxaan ku guda jirnaa waraysyadii aanu la yeelanaynay mudane Jango. hadda waxaan doonaynaa in aan u wareegno dhanka iyo madaxweynaha cusub oo la doonayo in la doorto ama uu soo sharaxo. mudane, maalmahan waxaa isu sharaxayay mudane Qanyare iyo asxaab kale oo fara badan. marka yaad is leedahay Soomaaliya wax way u qaban karaan, ama madaxtinimada yaa ku habboon in loo doorto?
mahadsantahay Soomaaliya madaxtinimadeeda haddaan qiyaaso qof kasta waa rabtaa qof oo diidaysa ma jirto laakiin bulshadu waxay soo dogaanso ay qof kasta soo doorato ayaan qabaa aniga laakiin aniga qaasatan waxaan u maleeyahaa haddaan qiyaaso mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed inuu hadda kulay dadka u caraf laadinayaan halkaas mudan Sheekh Shariif maxaa ku dooratay ma siyaasanimadiisa mase waxyaabo kale waa jira macnaha asiga shakhsi ahaantiisa ma kula tahay in uu khibrad u leeyahay xagga hogaaminta ummadda Soomaaliyeed waynu ognahay ummadda Soomaaliyeed 20 sano in ku dhawaad ah ay dhibaato ku jirta iyo burbur iyo dhibaatooyin marka ummadda Soomaaliyeed nin samata faxin karo muu og yahay haddaan qiyaaso aniga ra'ligayga wuxuu ileeyahay ummadda Soomaaliyeed nin ra'ligooda si allaala si u yeeli karo waxa ka qabtiri karo wax allaala waxay u baahan tahay dabadeed kulay Soomaalida badanka waxay carab ku haysaa Sheekh Shariif anigana ra'ligay u soo ku darsaday laakiin nin ummadda sadamata bixi karo waa ogyahay haddaan qiyaaso dabcan kaasi wuxuu ahaa mudane Saciid Maxamed Jango oo aanu ka wareysanaynay barnaamijkii gaabnaa oo aan ugu talagalnay in aan ummadda ku tusino siyaalaha kala duwan ee waxyaabaha ka soo cusbaanaaday dalkeena Soomaaliya waana mahadsantihiin daawadayaal iyo dhageystayaal kulligiinba waxaana inoo ballan maalin biri dambo saacadu markay ay tahay 10 subaxnimo insha Allah wa salaamantiin kulligiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa